xogag dheeraada ayaa waxa uu ka soo baxaya waxa kala qabsaday ra'iisul wasaare Roble iyo wasiirada taageersan farmaajo intii lagu guda jiray shirkii golaha wasiirada ee shalay ka qabsoomay Muqdisho. ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Roble ayaa si adag uga hadlay isku dayay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ee shaqo joojinta iyo ciidamadii la wareegay xafiiskiisa. kulankii golaha wasiirada ee xalay ayuu Roble si kulul u canaantay xubnaha golaha wasiirada isagoona weydiiyay go'aankii ay ka qaateen wixii ka dhacay xafiiskiisa iyo kan golaha wasiirada, wuxuuna si cad ugu sheegay in wasiir kasta ee waajib ku ahayd inuu difaaco duulaankii lagu soo qaaday xukuumadda. ra'iisul wasaaraha ayaa ku goodiyay inuusan ka hari doonin Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayna sharciga ku kala bixi doonaan, wuxuuna amray in golaha wasiirada soo saaraan go'aan lagu cambaareynayo falkaasi isaguna uu magacaabi doono guddi baaritaan. wasiiradii taageersanaa Farmaajo oo la filayay in shirka ka hadlaan ayaa qaadeen tallaabo lama filaan ahayd markii ay ka gaabsadeen inay shirka ka hadlaan ama ra'iisul wasaaraha hadal ku soo celiyaan. dhinaca kale wasiiro isku dayay waan ay ka dhex sameeyaan Farmaajo Roble uu ka mid yahay ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka ayaa iyaguna ka aamusay go'aanka adag ee ra'iisul wasaaraha, waxayna dhammaantood qaateen go'aan aynan isla ogeyn oo ah inay aamusaan. shirka intuu socday ayaa ra'iisul wasaaraha waxa uu soo jeediyay go'aan ku aadanaa cambaareynta falkii uu ku kacay Farmaajo iyo in la sameeyo guddi baaritaan oo ay shirkaasi ku ansixiyeen golaha wasiirada, iyadoo wasiirada qaarkoodna laga dareemayo waqtigaasi in aysan xaalad raali ka ahayn. si kastaba ra'iisul wasaare Roble ayaa canaan badan dul saaray xubnaha golaha wasiirada ee taageersan dhanka Farmaajo isla markaasna ka aamusay tallaabooyinkii lagu weeraray xarunta ee ku shaqeysa xukuumadda Soomaaliya. kol hore ayaa wasiiro ka tirsan xukuumadda uu hogaaminayay ra'iisul wasaare ku-xigeenka iyaga oo la kulmay Farmaajo isla markaasna doonayay in arrimahan xal loogu helo. waxa uu ra'iisul wasaare Roble hordhigay sababaha ay uga aamuseen weerarkii lagu soo qaaday xukuumadda iyo weliba sababta ay u cadeyn waayeen go'aankooda, taas oo keentay in ra'iisul wasaaraha lagala hadli waayo arrimaha la xiriira xalinta khilaafka u dhexeeya isaga iyo Farmaajo. geesta kalena beesha caalamka ayaa weli wada dadaalo xal loogu raadinayo xiisada Soomaaliya. haddaba maxay tahay arinta lagu cadaadinayo Farmaajo oo beesha caalamka hormuudka ka tahay? xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya ee ANZOM ayaa shaaca ka qaaday in beesha caalamka ee wada hadallo la leedahay dhinacyada isku haya siyaasadda Soomaaliya si looga hortago in xiisada taagan ay isku rogto dagaal. qaramada midoobay iyo saaxiibada caalamka waxay xiriir la leeyihiin dhammaan dhinacyada si loogu booriyo inay xiisada qaboojiyaan. waxa sidaas yiri afayeenka ANZOM oo la hadlay wakaalada wararka ee Reuters, sida uu sheegay afayeenkaasi wada hadalada ayaa waxaa ku lug leh dalal ay ka mid yihiin Mareykanka iyo UK iyo ururka midooda Yurub iyo dhinacyo kale, waxayna Arbacadii kulamo gooni la yeesheen madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo sidoo kale golaha midooda musharaxiinta. hadafkooda labada kulanba wuxuu ahaa inay ku dhiirageliyaan hogaamiyaasha Soomaalida inay sii horumariyaan danaha wadanka ayna diiradda saaraan in la saxo qaladaadka doorashada, ayuu yiri afayeenkaasi. muhiimada koowaad ee beesha caalamka ee hadda tahay in Farmaajo lagu cadaadiyo inuu faraha kala baxo arrimaha doorashada oo uu daayo ra'iisul wasaare Roble welina aysan jirin qorshe lagu qasbayo in villa Soomaaliya uu kaga baxo. kaaliyaha xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa Arbacadii shaaca ka qaaday inay la hadleen Farmaajo kana dalbadeen inuu taageero dadaalada uu wado ra'iisul wasaare Roble. waxaan maanta kala hadalnay madaxweynaha Soomaaliya Farmaajo baahida degdega ee loo qabo in la joojiyo hadallada iyo ficilada xiisad abuurka ah. waxaan ku boorinay inuu ra'iisul wasaare Roble ku taageero qabashada shirka golaha wadatashiga qaranka iyo in si degdega loo dhameystiro doorashooyin la isku haleyn karo, ayaana ka soo yeeray waqtigaasi kaaliyaha xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka. beesha caalamku waxay hadda sheegaysaa in Farmaajo ay xakameyn karaan iyadoo aan lagu qasbin in uu baneeyo villa Soomaaliya, balse ayaga waxaa hogaaminaya cadaadis. haddii ay arkaan cadaadis ciidan oo ma furna waxaan ka ahayn inay Farmaajo ay meesha ka saaraan, ayuu yiri xildhibaan la hadlay dabagalka. Roble iyo musharaxiinta qaar ayaana qaba aragti ah inta uu Farmaajo villa Soomaaliya uu dhex joogo aysan dalka doorasho ka dhici karin, ayna muhiim tahay in cadaadis ciidan looga saaro. si kastaba waxaa jira xubno kale oo ka mid ah mucaaradka oo qabay in dagaal aan la gelin magaalada Muqdisho.